kusoo dhawow qaraaxa tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Paul Pogba ayaa loo ogolaan doonaa inuu ku biiro Barcelona ama koox walba uu rabo marka la gaaro bisha January, waxaa sida aaminsan tababare Jose Mourinho. wararka saaka ka imaanaya gudaha Ingiriiska ayaa ah kuwa xasaasi ah kadib markii tababaraha u dhashay wadanka Portugal laga soo xigtay inuu raadinayo bedelka Paul Pogba oo 2016 ka yimid kooxda kubadda cagta Juventus markii lagu soo qaatay lacag dhan 89 milyan, wuxuuna noqday markaas ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda cagta. ciyaaryahankan u dhashay wadanka France iyo tababare Jose Mourinho ayaa isfahmila. Pogba waxaa lagu eedeeyaa inuu soo bandhigay qaab ciyaareed liita kulankii Manchester United ay la ciyaartay kooxaha Brighton iyo waliba Tottenham. Pogba dhankiisa waxa uu aaminsan yahay inuusan la shaqayn doonin tababarahan u dhashay wadanka Portugal Mourinho oo inta badan si gaar ah ula xifaaltama ciyaartooyda kibirka badan. ciyaartii Faransa iyo xulka qaranka dalka Jarmalka u dhaxaysay markii ay soo dhamaatay kadib, Pogba ayaa la weydiiyay mustaqbalkiisa. mustaqbalkayga wuxuu ku xiran yahay Manchester United. ani ahaan waxaan hadda heshiis kula jiraa kooxdaasi, wali waxaan ciyaarayaa xil ciyaareedyadayda iga harsan heshiiska, balse lama oga waxa dhici doona bilaha soo socda, ayuu yiri. majalada la yiraahdo Independent waxa ay warinaysaa in Jose Mourinho uu raadinayo bedelka Paul Pogba. tababaraha u dhashay wadanka Portugal ayaa u jiheystay dhanka Sergio Milinkovic-Savic, ciyaaryahankan oo uu rabo inuu soo qaato marka la gaaro bisha January. inkastoo aan la ogeyn in Manchester United maamulkeeda sare ay aqbali doonaan mar kale Mourinho inuu suuqa lacag geliyo, haddana Jorge Mendes oo ah wakiilka Jose Mourinho ahna wakiilka Sergio Milinkovic-Savic ayaa ku dadaali doona sidii ciyaaryahankan lagu keeni lahaa kooxda kubadda cagta Manchester United. Mourinho ayaa u arkay Sergio Milinkovic-Savic inuu yahay bedelka saxda ee Paul Pogba, kaas oo haddii uu ka tago Manchester United kooxda keensan doonaan. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe. mahadsanid.